السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada asxaabta qaaliga halkan aynu marayna waxa weeyaan wadadii madaxtooyada waxa nooga muuqda Dar es Salaam Mall oo suuqa mall cusub oo aad iyo aad u qurux badan. wadadan aynu marayna waa wadadii madaxtooyada iyadana aad loo qurxiyay oo ishaarooyinkii iyo kamaradihii lagu rakibay markaas muuqaalka nooga muuqata. wadadan aynu marayna waxa weeyaan iyaduna wadooyinka Hargeysa ee la dhisay mid kamid ah oo wadaduna aad loo qurxiyay oo drainage-keedii iyo leyrkeedii iyo ishaaraadka ama calaamadihii baabuurka isku dhaafiyeen loo dhameystiray isla markaana la biriijyadii ay biyo ku gudbayeen marka wadada dhinaca kale uga gudbayaan. wadadani waxay ku dhacaysaa wadadii kale ee biriishka gaar ahaan biriishka weyn ee xagga madaxtooyada xiga biriishkaas ay wadada ku dhacdaan tanaalka wadada biriishka ay ka gelaysay tan kaga dhacaysaa waa wada aad u qurux badan isla markaana ka mid ah wadooyinka aad loo hormariyay ee casriga saayidii ka muuqata calaamadihii bay leedahay baabuurta kala hagayay isla markaana wixii khatar ka digayay. asxaabay waxaynu muuqaal aad iyo aad u qurux badan ka soo sameyn doonaa xaafadda masallaha inagoo markaa soo duubi doonaa masallaf iyo meesha la yiraahdo inagoo soo duubi doona muuqaal inagoo markaa ka duubayna magaalada iyo bilicdeeda iyo guud ahaan sida ay u muuqato inagoo muuqaal qurux badan ka soo sameyn doonaa insha Allah. asxaabtiina la sii joogto waxaan leeyahay muuqaalka like saara share gareeya aad iyo aad u mahadsantihiin. asxaabta nagu cusub idinkuna subscribe saara muuqaalka halkan aynu marayna waa biriishkii oo markaa dadkuna ay yaqaanaan biriish leecleec isagana aad meelaha aadka loo qurxiyay isaguna uu ka mid yahay kalarada iyo rinjiga la mariyay leyrka iyo qashaafadaha ku xidhan isna wax ka mid yahay meelaha aadka loo hagaajiyay. halkan aynu marayna waxa weeyaan iyadana biriishka inuu ka soo dhaafnay kaalin baa iyadana halkaa laga sameeyay aad iyo aad iyadana kanasaayay oo qurux badan. xaafadan aynu soo gaarnay waxa weeyaan xaafadii biibsiga ayaynu soo gaarnay marka waxaanu ku sii soconaa halkeenii masallaf iyo baynu ku sii soconaa oo aynu muuqaal aad iyo aad u qurux badan ka soo diyaarin doono la socod wanaagsan idinkuna. halkan aynu maraynaana waa wadadii biibsiga aynu maraynaa waxaanu kusii dhownahay wasaaradii gaadiidka ee laga qaadanayay liisanka qofka darawalka qaadanayay oo taa dhinaca bidixda ay naga haysay calanka uu marsan yahay. waxaanu kusii dhownahay halkii magaranaysaa jaamacaddii Hargeysa looga leexanayay boorka ay noo muuqdo boorka kale midigta ka xiga ayaa looga leexdaa boorka ay imka soo baxay halkaasaa looga laabaa. anaguna waxaan sameyn doonaa biriishka ay naga soo horbaxay baynu bidixdan ula leexan doonaa tooskaasi waa ishii boorama masallaf iyo baynu soo gaarnay magaalada halkana si qurux badan looga arkaa oo habeenkii weliba aad iyo aad ay qurux badan tahay oo leyrkeeda iyo midabada leyrka uu leeyahay si fiican looga arkaa maalintiina si fiican baa halkan looga arkaa aad iyo aad bay qurux badan tahay. magaaladu marka halkan laga joogo aad iyo aad muuqaal qurux badan ayay leedahay hase ahaatee waxoogaa anaga suuminka ama soo dhaweynta magaranaysa kamaradeeda waxoogaa yar daciif ahayd marka iyadoo inaga fog umaan duubnay sidaasayba muuqaal aad iyo aad u qurux badan ay ku tahay. dhinacan midigta waxaa naga xiga hoteelka loo yaqaanay masallaf view shabagiisa oo halkaa inooga muuqda masallaf view baa la yidhaahdaa. marka masalliimka waan ka tagnay waxaan kusii soconaa xaafadda bal masallaha guud ahaan xaafadda masallaha soo eegaynaa. xaafadan waxay ka mid tahay xaafadaha Hargeysa oo ugu quruxda badan bay ka mid tahay sida arkaysaan dhirta iyo laamiyadu say yihiin ama wadooyinku say balbalaaran yihiin quruxda xaafadaha iyo dayrarka iyo guryaha dhismaha saa loo dhisay waa xaafad iyadana markaa ka mid ah xaafadaha ugu quruxda badan magaalada Hargeysa waa xaafad casriya aad iyo aad markaa u qurux badan. halkaa tooska waxay nooga muuqda minaaradii masaajidka masaajidkaas oo ah markaa masaajidkii Sheekh Mustafa masaajidka Sheekh Mustafa imaamka ka yahay weeyaan isagana waynu soo duubi doonaa muuqaal qurux badan. masaajidka waxaa iyadana ku naban oo ku xigta xaafadda la yiraahdo Rugsan oo ka mid ah markaa xaafadaha ay dhistay shirkadda Telesom ay dhistay isla markaana xaafada aad iyo aad u qurux badan oo markaa adeegyadeedii waxyaabaha ay u baahnayd oo dhan loo dhameystiray
iyadana markaynu ku dhawaano muuqaal ka soo samayn doonaa. xaafaddu waa taa inoo muuqata. intaa xaafadda ka sokaysa bannaan oo dhan waxaa iskale masaajidka, waa baarkinkii masaajidka. waxaynu ku dhowaan doonaa xaafadda albaabkeeda ama kadinka laga galo ayaynu iyadana eegi doonaa. waatan iyadana xaafaddu sidaa noo muuqata. albaabkeeda markaynu gaarno si fiican u arkaynaa. halkan waa xaafadda albaabkeedii, hugsan baa xaafadda laydhaa. marka waa xaafad iyaduna aada u qurux badan oo iyaduna si casriya loo dhisay. hadday leerhkii tahay, haddii biyihii tahay, haddii magaranaysaa waxyaabihii kale loo baahnaayo dhan tahay, dhulka hoostiisay marayaan. waxarka iyo wax laydha markaa oo magaranaysaa saa waddada u taltallaabaya ma arkaysid. waa xaafad aad iyo aad u dhisantay, aadna loo qurxiyey. halkan waxay nooga muuqan doona iyadana meheradihii ay xaafaddani lahayd ee markaa waxyaabaha adeegay u baahato ay ka qaadanaysay. subarmarketyadii, meelihii kale adeegyada kale ay ka qaadanayeen, dukaamadii, waxyaabahaasoo dhan waxyaabihii baahiyaadka xaafadda noqon lahaa ayaa iyaguna magaranaysaa aan ka maqnayn oo ku yaalla. halkaa waxay nooga muuqda masaajidkii xaafaddaynu hortaaganahay. intaa ka sogaysa masaajidka o dhan waa baarkinkii masaajidka. magaranaysaa maadaama dad badan iyo bulsho badan ay masaajidka imanayaan ayaa magaranaysaa baarkinka weyn loo sameeyey. halkan waxa weeyaan xaafadda ayaynu xagga dambe ka maraynaa. xaafaddii magaranaysaa ayay rugsan dhinaceedii dambe wakaa. Subscribe Mammouse Media. Thanks.